nabadgelyada naxariista eebe iyo barakooyinkiisu haydin ahaadeen kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah. barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay qaladaadka ay galaan ardayda xilliga exaamka uu kusoo wajahan yahay. diyaarinta ama barnaamijkan xuquuqdiisa waxaa leh ustaad maxamed mahad goosaar oo aan halkan uga mahad celinayo. qaladaadka ay ardayda galaan aad bay u badan yihiin. halkan waxaan ku xusi doonaa qaar ka mid ah qaladaadkaasi. kow, dhafarka. sida aynu la wada soconaba ardayda badankood waxa ay diyaar garowga ugu badan galaan xilliga exaamka berito la dhahayo, waana mar ay waajib ku tahay inay dhafraan. dhafarka waa mid ka mid ah qaladaadka ay galaan ardayda kaasoo saameyn ku yeelan doona. saameyntana waxa ay tahay in ay ku dhafraan wax aqrin iyo wax diyaarin badan subaxiina markii looga baahan yahay in ay tagaan iskuulaadka ama goobaha exaamka uu ka dhacayo ay zaid uga daahan ama waqtigaba uu kulmayo. waxa aad ku soo dadaalaysay in aad dulmar ku sameyn weydo. badana way dhacdaa qaacidadan ama qaladkan waa u dhacaa sababtoo ah ardayda badana xilliyada imtixaanaadka lagu guda jiro ama xiisadaha koowaad marka ay dhamaadaan intii ay muraajaco ama ku celcelin badan ay sameyn lahaayeen waxa ay galaan sheekooyin iyo maalayacni. taasina waa qaladkii labaad. in uu ardayga yimaado goobta uu imtixaanka ka dhacayo isagoonan soo cunin wax cunno ah. taasina waxa ay keeni kartaa in uu fikirkiisa ama inta ugu badan uu ku kharash gareeyo intuu imtixaanka ka shaqeyn lahaa xaafadda iyo waxa la karinayo. waxaan kula talin lahaa haddaad tahay arday imtixaan galaya in aad cunto cuno fudud baahidana kaa tiraysa aanan ku dharginaynin adigoo ku jirta imtixaankana ku hurdisiinaynin. qaladka afraad oo ardaydu galaan xilliga exaamka lagu guda jiro waa in aysan sawiran wax guul ah. waxaan in badan ku celceliyaa in ardaydu mase qof walba aad tahay aad sawirato guul waa mid ka mid ah hormuudyada aad ku gaari karto wax walba oo aad u baahan tahay nolosha. ardaydana waa qalad ka mid ah qaladada ay galaan in aysan sawiran guul waxuna ay sawirtaan. allana waxaa laga sawirtaa semberi in uu alle guul kugu hogaaminayo. qaladka shanaad ay ardaydu galaan xilliga exaamka lagu guda jiro waa in aysan taam u ahayn dhammaan qalabkii uu ku shaqaysan lahaa ardayga, ha ahaadaan qalimaan ama buugaag ama wixii uu muraajacada ku sameyn lahaaba. qaladka lixaad waxa uu bahwadaag leeyahay qaladkii koowaad ee aynu soo xusnay. iskuulka aadan imaan xilli munaasab ku ah ama xilli hore. sida aynu la wada soconaba iskuulaadka waa la xirayaa haddaad soo dahdo ha kuu jira cashiro ama exaamba. inaad imaado iskuulka xilli horena waxay kaa saacidaysaa inaad muraajaco samayso waxaaga aad la socoto exaamkana aad si wanaagsan u gasho. qaladka toddobaad oo ay ardaydu galaan waxa weeye in aysan muujin ardayda waxa loo yaqaano isdejin ama inaadan nafsadaada dejin. sida aan la wada soconaba xilliyada imtixaanka aynu galayno waxa aynu daraynaa walwal badan iyo walbahaar kaasoo aynu ka cabsanayno amaan wax badan soo khaladnaa iyo waxyaabo la mid ah. taasina kuma habboona waana mid ka mid ah khaladaadka ay ardaydu galaan xilliyada imtixaanka. qaladka sideedaad in aadan muujin waxa la yiraahdo kalsooni. kalsoonida waa mid ka mid ah shayada ugu muhiimsan ee nooluhu ku socdo ama uu ku tiirsan yahay. muuji kalsooni inaad naftaada ku kalsoon tahay, iskana ilaali waxa la yiraahdo qish oo inoo soo socda. qaladka sagaalaad sida aynu la wada soconaba badankeen ama inteena badan waxaynu sameynaa qish xilliyada lagu guda jiro imtixaanaadka, waana mid ka mid ah kuwa ugu xun ee ardaydu sameeyaan. ha aata nin jooga high level iyo hawa ugu badnaadaan kuwa aadka u liita. kan high levelka waxa uu doonayaa in su-aashii ka maqnayd uu taam ka dhigto, kan aadka u hooseeyana waxa uu doonayaa in wax uunba uu helo. taasina waa mid ka mid ah qaladaadka ay galaan ardayda. isku kalsoonow naftaada awoodsii oo is-aamin adiga. qaladka tobanaad ee ugu dambeeya inaynan ardaydu isku dhiibin allah ayna ku degdegaan imtixaanka iyagoon alla micigooda ahayn. shay walba uu alla micigiisa ahaadana dhammaan way hagaagayaan. alla aamin oo ducayso oo quraanka ku bilow kuna dhamaystir saliga nabiga insha arrahmaan wax walba way ku toosi doonaan. intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa insha arrahmaan. barnaamijkan qayb ka mid ah ama intiisa ugu badan waxaan uga mahad celinayaa ustaad maxamed mahad goosaar oo xuquuqda barnaamijkan leh.
nabadgelyo